jaaliyadda Soomaaliland ee dalka Norway ayaa kulan hordhac ah oo ay kaga wada hadlayeen halka ay marayso qabanqaabada xuska 24 guurada dib u la soo noqoshada gooni-sutaaga Soomaaliland ayaa shir ay ku yeesheen magaalada Oslo kulankaas oo laga sheegay in hawsha qabanqaabadu ay si fiican u socoto agaasinkeedina uu dhamaad ku dhow yahay dhaqaale ahaan iyo maamul ahaanba gudoomiyaha jaaliyadda Cali Maxamed warbixin uu shirka siiyay wuxuu ku sheegay inay diyaariyeen goobtii xuska guud ka dhacay isla markaana ay dejiyeen barnaamijkii madasha dhaqaale ahaan ay badi debereen hawlaha xuska oo dhan wakiilka Soomaaliland u fadhiya dalka Norway Sulub Xuseen Warsame ayaa ku booriyay in saddexda xusbi qaran iyo dhammaan jaaliyadda Norway inay u diyaar garoobaan xuska maalinta 24 guurada ka soo wareegtay gooni-sutaaga Soomaaliland sidii loo ballaarin lahaa si qarannimada aynu u muujino oo meel aynu uga soo wada jeesano aanu xusno oo runtii annakoo gamcaas wada haysanaa saddexda xisbi qaran iyo jaaliyadda iyo runtii reer Soomaaliland oo dhan dumar iyo waayeel iyo caruur ayaanu runtii xusnaa 18 May saddexda xisbi qaran ayaa iyana halka ka hadlay ugu horeyn waxa halka ka hadlay gudoomiyaha xisbiga kulmiye laantiisa Norway Maxamed Cabdi Ismaaciil waxaana hadaladiisii kamid ahaa waxaan dhammaan isla go'aansanay dadna xisbiyada qaranka wakiilka Soomaaliland u fadhiya Norway Sulub iyo gudoomiyaha jaaliyadda reer Soomaaliland ee Norway Cali waxaan isla go'aansanay in xafladda la qabto 18 May maalin Isniina la isugu yimaado dhammaan laga soo qayb galo dadka reer Soomaaliland ee ku nool dalka Norway waxa isna halka ka hadlay gudoomiye ku-xigeenka xisbiga wadani ee laantiisa Norway Maxamed Xasan waxaana hadaladiisii kamid ah xisbiyada qaranka waxaan halkan aanu isku nimi inaanu ka shirno sidii 18 May loo qaban lahaa iyo qabanqaabadeedii inuu ka muuqano inaga oo ah xisbiga wadani insha Allah ugu dambeyntii waxa halka ka hadlay gudoomiye ku-xigeenka labaad ee garabka dhalinyarada ee xisbiga UCID Muwarig Yusuf Ahmed Buronay waxaana hadaladiisii kamid ahaa 18 May maalinta qarannimada Soomaaliland oo aad imka foodan ugu soo saxaysa waxaan doonayaa jaaliyadda reer Soomaaliland intan 18 May ee gaadhin inaan ku ilaa congratulation marka hore 18 May qurux badan haduu alla ka dhigo 2015 insha Allah waxaan leeyahay guul Soomaaliland Maxamed Jaamac Dhiif TV qaranka Oslo Norway